waqtigii gabagabada ciyaarihii maamul goboleedyada dalka galmudug waxay tiri adiga ayaa abuuran kara iftiinka naftaadana weliba geyn kara halka ugu sarreeya koobkii maamul goboleedyada galmudug waxa uu ahaa safarkii cimriga dhammaadkiina waxa uu qaatay tilmaantii uu mudnaa habeenkii cimriga muqdisho waxay samaysay martigelin heer sare iyo booqasho kubadeed caalam bedel u ah riyo isbedbedelaysa waxaa la soo gaaray final isha lagu wada hayay islamarkaana ay ku loolameen galmudug iyo hirshabeelle ma aha riyo bal waa xaqiiqo iyo hadaf la gaaray oo la sugayo sannado iyo sannado kubadda cagtu waxay la safataa kuwa samre islamarkaana u jihaada galmudug waa jambiyoniska koobka maamul goboleedyada sannadkan waan hurdayaa iyadoo qalbigayga ku jirto dhunkashada koobkaasi habeenno badan waan u dhafray sidii aan u gaari lahaa ilbiriqsigan dadaal ayaan ugu fariisanay carshiga kubadda cagta haddii aan koobkan qaadi lahayn laga yaabay soon inaan ku dhammaysan lahaa waa kelmado cabiraya shucuurta iyo dareenka xidiga xulka galmudug iyo wiilka daayarada qarankeenna ka mid ah ee diini maxamed daahir isagoo laabta ku haya dahabka koobka maamul goboleedyada kaasoo ay u qaadeen isaga iyo saaxiibadiisa markii ugu horreysay maamulka galmudug waxaa loo caleema saaray caruuska sanadka iyo boqorada koobka maamul goboleedyada xidigtooduna waxay qurxinaysaa fanaanadooda kadib gabagabo miskii la mid ahayd oo dhinacoodu dhulka ay ku dhigeen maamulka hirshabeelle quruxda tartanka waxa uu ahaa martigelinta caasimadda iyo bandhigyadii kubadeed ee aanu soo daawanay taasoo ahayd mid ka mid a kuwii ugu quruxda badnaa ciwaanadeedu waxay ahaayeen hadalayn iyo xiiso yaabkooduna waxa uu ahaa goolal khiyaaliya iyo indhadaraandar ka yimid duni kale tartanku waxa uu dhiciseeyey riyooyinka xulal badan halka kuwo kale ay kiciyeen hamigooda si aakhirkii kubadda ay ugu dhoolla caddayso saaxiibada diini waxaa soo gabagaboobay isbabardhigii laacibiinta koobka maamul goboleedyada waxa uu yimid in markhaati u yeelo kuwa necabka hor cushaaqdiisa si jawaab cad oo weyn loogu qoro diini laacibka ugu fiican shakila'aan waxa uu dhigay taariikh isagoo diiday u jilbajabsiga wejiga madow ee kubadda cagta diini waxa uu muujiyey ruux iyo giriinta isaga iyo saaxiibadiisuna tartanku waxay u gacangeliyeen maamulka galmudug haddii qaacide kasta waxay ku soocan tahay diinina waa mid ka soocan laacibiinta kale rasmi ahaan diini maxamed daahir waxa uu ku guulaystay abaalmarintii laacibka ugu fiican tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir taasoo munaasabad iyo bandhig weyn loogu qabtay xarunta looga arrimiyo dalka ee madaxtooyada qaranka isagoo sidaasi ku qaatay besti player ama laacibka ugu fiican sidoo kale cabdisalaan cali cabdulle asensiyo oo ka tirsan xulka galmudug ayaa ku guulaystay golhayihii ugu fiicnaa tartanka sidoo kale kaafi xasan shiine oo ku guulaystay garsoorihii maamul goboleedyada ha ka tegin axmed taaliil cali besti coach ama tababarihii ugu wanaagsanaa tartanka isagoo sidoo kale ahaa tababarihii tartankan u qaaday maamulka galmudug aakhirkii koobkii ay u jihaadeen wiilasha galmudug shalaytoo leh madaxtooyada qaranka waxaa ku guddoonsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud magacaygu waa cabduqaadir keyska asalaamu calaykum duhur wanaagsan khiyaarteenna kusoo dhowaada barnaamijkeena latest hadahan oo kale aad uga barateen barteenna barnaamijka daawada qodobo dhowr ayaan idinku weynaysa markaana soo ururin doonaa sii sheergaraya subscribe saara hordhac ma doonaya wakhti badan in kaga qaado laakiin aanu ku bilownay city xalaytool iyadoo la wada daawanayo bay markaa inta ay qabteen brentford ayay u beegeen wakhti iyagu ay la hormareen gool waa laga keenay hoobaa layidhi niyar waa ku farayaraystay hatrigo vodina hatrigii xalaytole uu dhaliyay wuu macno badnaa ma ahay natiijada keliya inuu caawinayay laakiin ciyaar 6 dhibcood lagu markaa nisbeeye bay ahayd ciyaartan sababtoo ah city badiska ay badisay culays weyn ayuu ku keenay kooxaha la tartamaya liverpool iyo arsenal haddii kulanka u baaqiyana ay soo badiyaan iyagaa hogaaminaya city baa hogaaminaysa horyaalka macnaha waxay ka dhignaan doontaa way adag tahay city in hogaanka markaas iyadu laga fujiyo habeenka markaa caruuska habeenka wuxuu ahaa foden waa sax odagii guardiola ahaana kursigiisii hogaamiyenimada ayuu isagu cararayaa intuba waa positive laakiin midda ugu muhiimsan waxay tahay naadiga iyo weliba markaasi xidigaha haystaan firi goolka foden madaxa uu ku dhalinayay asistiga uu sameeyey dibrun cowr yacni wax
cajiiba oo incredible yani qaabkaas oo kale in markaa loo samayn karo waa wax runtii inaba aan caadi ahayn, inaba aan sahlanayn, unbelievable. marka mustaxiil ayaan dhihi karaynaa qaabkaas quruxda badan in uu isagu ciyaaro Foden, weliba qaabka cajiibka ee kubadda loo caawiyo intuba kama shakin karno. City maxaa horyaala? City hadda hogaanka waxay u baahan tahay in kulamadeeda ay guuleystaan, kulanka u baaqiyana iyagu ay sugaan markaas. Sababtoo ah kulankii xalay tole ahmiyad weyn buu u lahaa, weliba saameyn buu ku yeelanayaa. City kulan weyn oo adag horyaalka ma sugayaan ilaa iyo derby goormuu kusoo jiraa. Everton bay la ciyaarayaan kulanka soo aadan, kadibna Champions League Copenhagen, kadibna Chelsea waa ka sokaysa oo 17 bisha February ah, kadibna Brentford ay mar kale la ciyaari doonaan, kadibna Bournemouth FA Cup bay la ciyaari doonaan, kadibna 3 March derby, kadibna Copenhagen. yani kulanka Man United iyo Liverpool oo 10 bisha March iyo 3 Copenhagen oo Champions League ah, United bay la ciyaarayaan Copenhagen, kadibna Liverpool bay gurigeeda Anfield ugu tagayaan. wow, hal kulama haddana u dhexeeya Brighton, kadibna Arsenal baa loo dhiibaya. yani 31 bisha March waxaan arki doonaa hogaanka City inay meel marsato hadday kulamadaasi ka badbaado. almost warku waa inta lama saarnaanayo. markaan ka hadlayno Premier League war baa laga hadlayay saacadii lasoo dhaafay, aad baana markaasi sheekadiisu ay u qabsatay. waxaan ula jeedaa laacibka cajiibka quality-ga leh ninka lagu magacaabo Kylian Mbappe. dabcan aad baa la isugu dhex wadaa, cid kasta waxay ka hadlaysaa ninkan iyo bixitaankiisa. Fabrizio waa diblomaasiyadeynaya, wariyaal kalena way jiraan, waa ku biiri Madrid bay yidhahdeen, laakiin wariyaashaasi laguma kalsoonaan karo. 100 xabi maalin kasta yidhaahdaan kan baa kooxda aadaya, haddana ma dhacan. marka laguma kalsoonaan karo wariyaasha kale xogay ay soo gudbiyeen. hadda Ingiriiska oo kale Daily Mail iyo The Sun iyo markaad eegtay waxay ku leeyihiin amal iyo rajo baa jirta oo laacibkan loogu tartamayo, oo naadiyada Ingiriiska ugu tartamayaan. Spain oo kale markaa fiirisid waxay ku leeyihiin almost laacibkan waa tagay, intuu aaday Madrid buu isagu aaday. marka doodyaa badan baa ka dhex taagan, laakiin waxaan sugi doonaa ilaa iyo maalmaha ugu dambeeya sinay u kala cadaadaan suuqa kala iibsiga iyo waxa la tilmaamayo iyo sheekooyinka ugu waaweynaa. markaas baa wax walba ay kala cadaan doonaan. laakiin Mbappe weli sheekadiisu Madrid buu aaday, ma aadin, PSG buu joogaa, booq fara badan baa. laakiin inta hadda wariyaasha badankood waxay isku raaceen almost inuu aaday. yani ninkii ahaa Fabrizio ma diidin mana ogolaanin, laakiin waa uu diblomaasiyadeeyey. waqtiga ayaan u dayn doonaa buu leeyahy. telefishinka Real Madrid wuxuu u jawaabayaa Xavi Hernandez isagoo markaasi ku eedeynaya wayihiisa kubadda cagta oo dhanba inay wax micno aan ku fadhin, macnaha ay tahay mid garsoor iyo wax la mida lagu waday. marka nadiga kubadda cagta ee Real Madrid waxay weeraraysaa Barcelona labsadeedu ma aamusano, gacmaha isma saarnee, iyaguna weerar bay ku hayaan oo waxbay ka sheegayaan. nadiga kubadda cagta ay markaasi aad u dhaliilayeen, ay tilmaamayeen, ay buushgareynayeen, warbaahinta ay weerarayeen, waxay marka wax ka sheegayeen garsoorkii iyo weliba markaa dowladoo dhanba. waxaanay ku eedeynayeen nadiga kubadda cagta Real Madrid inay tahay naadiga nidaamka ama markaa maamulka ama dowladda meesha ka jirta. yani waxaa weeraray in ka badan hal ruux baad aragteen oo weeraraya, sida Laporte oo kale oo gudoomiyihii kooxda siduu uga hadlay waad arkayseen. Xavi Hernandez isaguna waad arkayseen siduu uga hadlay, waxaad aragteen. yani in ka badan hal dhinac baa markaasi ka hadlay oo weliba si toos arrintu usoo farageliyey, si cadna markaasi u tilmaamaya inay markaasi siday wax u socdaan ay adkaan doonaan, isla markaana aysan ku socon karin sidan. geesta kale nadiga kubadda cagta Real Madrid waxay noqotay naadiga keliya xilciyaareedkan joojin kara Real Madrid. la Barcelona wala Girona wala tukale inaysan tabar u haynin baa la ogaaday. Simeone askartiis wuxuu ka reebay Copa del Rey
horyaalkii buu markaasi 4 dhibici ka qaatay, midna waa usoo beegay, midka kalena waa kaaba subarkii baa isaga laga reebay, laakiin isagu kan buu ku arsaday, horyaalkiina 4 dhibcood uu ka qaaday, midna barbara buu la galay, mar kalena waa ka isagu u cadareeyey markaasi. geesta kale nadiga kubadda cagta ee Liverpool haddii aanu ka hadalno, waxaan ka hadlaynaa sheekada ku saabsan xidiga bedelka u noqon doona Mohamed Salah. waxaa jira warar badan oo tilmaamaya kooxda kubadda cagta Barcelona inay qorsheynayso xillireedkii inay iibiso Rafinha, wiilka ka tirsan Blaugrana, kaasoo ah dhib kooxda haysta. Barcelona inay inkaaran tahay 2 Ferran Torres baa u joogay, Ferran Torres oo Rafinha ah iyo Ferran Torres kale Isbaanishka. marka kooxdu waxay u baahan tahay isbedel inay sameeyaan samarkan xidigan iyagu ay diraan si xal ay ugu helaan, sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan. almost waxa leeyahay xidiga Rafinha wuxuu noqon doonaa xidig ugu horeeya baxaya, lagu daray Ansu Fati, isaguna kooxdu waa ka takhalusi doonta, waxay u baahan tahay bedelkiisa iyadoo inay soo qaadato sida xogii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan. yani Ansu Fati iyo Rafinha waa macquul, sheeko markaas aan saaranayn, waliba xitaa cajiiba. marka almost Rafinha iyo Ansu Fati waa ka waxa leeyahay ma sahlana markaasi. si sheer gare saaxiibadin la wadaaga. salaam.